السلام عليكم سو دhowaada welcome to my YouTube channel maanta waxaan doonayaa inaan baro cashan loo yaqaano prolonged labor waa maxay prolonged labor waxa weeyaan marka ay gabadha dhali weyso ayadoo hayso 12 saacadood iyo wax ka badan marka ay gabadha fool hayso aysan wali dhalaynin waxyaalaha keena labaan u kala qaadi doonaa oo mar waxaan ka fiirin doonaa first stage-ga marna waxaan ka fiirin doonaa second stage first stage waa maxay waa gabadha marka ay foolan hayso second stage waa maxay waa marka cunuga soo bixayo mise cunuga markuu crown-gareeyay mise ay gabadha furan tahay 10 cm marka ay furan tahay okay waa maxay waxa keena prolonged labor ama foosha daba dheereeyo marka ay gabadha joogto first stage ugu horeyso marka ay gabadha joogto waa maxay waxyaalaha foosha daba dheereeyo waxa kamid ah poor uterine contraction oo ah in wax dhaqdhaqaaq aysan ka jirin minka gudihiisa wax aysan wax dhaqdhaqaaq malaha ama gabadha xanuunkii baa ku yar waxa kale oo keeni karo pelvic abnormalities gabadha pelviskeeda markay wax ka qaldiin waxa ka qaldanaan kara waxay noqon kartaa contracted mid isku dhow bay noqon kartaa waxay noqon kartaa tumors baa meesha ku jiro oo burooyin baa ku jiri kara pelviskeeda bay burooyin ku jiri karaan waxa kale oo ka qaldami kara waxyaalaha kale oo keeni kara waxa kamid ah macrosomic baby waa maxay waa cunuga markuu ka weyn yahay 4 kilo cunug gudaha ku jira markuu ka weyn yahay 4 kilo iyo wax ka badan waxa kale oo keeni kara psychological factors waxyaalaha maskaxiyan la xiriiro waa gabadh inay cabsanayso gabadh inay walwalsan tahay gabadh inay depression qabto sidaa darteed waxyaalaha psychological waxa lagu hortagi karaa in gabadha you have to leeyahay anxiety macnaheeda in aad walwalka ka baabaysid oo aad u sheegtid in wax walbaba ay toosi doonaan oo aad la dadaashid baa looga hortagi karaa second stage gabadha markuu ilmaha soo baxayaan ama 10 cm markay furan tahay waa maxay waxyaalaha ku keeni karo inay foosha daba dheeraato waxa ku keeni karo poor maternal effort hooyada inaysan ilmaha soo riixaynin oo hooyada ay daalan tahay hooyada inaysan ilmaha soo riixaynin energy ama tamar la'aan ay tahay okay rigid perineum macnaha waxa yar vagina-ga ayaa aad u yar ama vaginal muscles-ga ayaa wax kuwa aad u adag rigid perineum inta badan waxay ku timaadaa gabdhaha aan hore u marin ama gabdhaha ugubka ah bay ku timaadaa taa camal waxa loo hortagi karaa in maxaa samaynaysaa episiotomy waa inaad jeexdaa okay malpresentation macnaha in cunugu uu la yimaado berida cunugu inuu la yimaado meel aanan ahayn vertex presentation meel aanan ahayn uu la yimaado waxyaalaha waxaa looga hortagi karaa in marka hore aad diagnose garaysid oo markii ay gabadha marka hore kugu imaanayso aad diagnose garaysid oo ogaatid cunuga presentationkiisa okay rigid perineum waa sheegnay oo waxaa looga hortagi karaa episiotomy poor maternal effort waxaad hooyada u samaynaysaa dextrose waa ina hooyada dextrose ku xirtaa biyaha infusion oo IV infusion oo dextrose waa ina ku xirtaa poor maternal effort waxyaalaha ayaa lagu xalin karaa waa gudbaynaa oo waxaan gudbaynaa maternal complications maxaa dhici kara haddii prolonged labor haddii aan la xalin hooyada maxaa ku imaan kara waxaa ku imaan kara edema of the pelvic floor in the pelvic floor ama waxyaalaha pelviska ama miskaha waxyaalaha gudihiisa sidii the vaginal wall ama waxa loo yaqaano muscles of the pelvis ama vaginal wall inuu barar ku yimaado waxa kale oo dhici kara retention of urine macnaha gabadha in ay kaadida ka soo bixi weydo taana waxa keenaya ilmaha madaxiisa ayaa wuxuu cadaadinayaa the bladder waqti dheer marka kadib waxa imaanaysa in xoqitaan camal uu ku keeno the bladder ama urethra iyo waxyaalaha dhan inuu xoqitaan ku keeno ilmaha madaxiisa waxa kale oo imaan kara ruptured uterus in uterus uu jeexmo uu dilaaco kadibna gabadha dhiigbax uu ku yimaado due to overstretching ayaana keenaya ama kala balaarashada zaidka deep perineal tears baa imaan kara deep perineal tears jeexdin waxa isu furmi karo oo maarti isu jeexmi karo inta u dhaxaysa the vagina and the anus iyo anuska waxyaalaha kale oo imaan karo waxa kamid ah stress incontinence in gabadha markii ay qufacayso ama markay hindhisoonayso ay kaadi wax ka yimaadaan taana waxa keenaysa dhaawac ku yimaada ama dhibaatada ku timaada bladder ayaa keenaysa ilmaha madaxiisa uu keeni karo waa maxay fetal complication ilmaha maxaa ku imaan kara marka haddii prolonged labor gabadha ay waqti dheer foolanayso 12 saacadood iyo wax ka badan haddii gabadha ay foolanayso maxaa ku imaan kara fetal complication ilmaha maxaa ku imaan kara intracranial damages due to excessive molding waxa ku imaan kara intracranial damage in madaxa wax ka soo gaaraan ilmaha madaxiisa inay wax ka soo gaaraan sutureska inay aad isu dhaafaan ama excessive molding inuu dhaco waxa kale oo imaan kara fetal hypoxia inuu ilmaha naqs ku dhaco
ama oxygenka ku yaraato taana ilmaha waxay ku keenaysaa asphyxia neonatal wax loo yaqaan asphyxia neonatal hadhow cunugu dhalanaya laakiin naqaska iyo ku dhigan cunug neefsanaya maaha waxa kale oo iman karo intracranial hemorrhage ilmaha madaxiisa inuu dhiig ku furmo ama waxa loo yaqaan meningiska inuu dhiig ku furmo